gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur Ismaaciil Cumar Madoobe ayaa saaka aroornimadii hore ololo wada banayna ka bilaabay degmada Ibrahim Koodbuur wadooyinkan uu saaka gudoomiyuhu bilaabay ayaa ahaa wadooyin xidhnaa iyadoo wadooyinka qaarkood aan cidi hore u mari jirin wadooyinkan degmada Ibrahim Koodbuur ee saaka ololaha laga bilaabay ayaa noqon doona qaar horseed ka noqda isu socodka bulshada ku dhaqan degmada Ibrahim Koodbuur iyo xaafadaha si kala xanibnaa gaadiidka iyo bulshada degmadaasiba ay dib weyn ku iyadoo wadooyinka xanibnaa qaarkoodna ay gabiyahaanba ay xidheen dhir waaweyn oo ka dhex baxday wadooyinkaasi gudoomiyaha degmada ayaa isu taagay hirgelinta wadooyinkan iyo sidii ay xaafadahaasi u heli laayeen wadooyin ku filan hawshan ay saaka bilaabeen iyo halka ay doonayaan inay gaarsiiyaan wadada safari hormarta oo aan saaka oo balaaran kalay oo aan ka banaynay barnaamijyada wadada lagu qabay oo aan suurtagal aan ahayn in gaarigi meerada waxay daba socotaa waxqabadkii iyo ballanqaadkii golaha deegaanka ay ku ballan qaadeen in ummadda wax ku qabanayaan sidoo kale gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ayaa hawshan wada banaynta ee saaka uu bilaabay waxa barbar socday amar uu siiyay dadka meheradaha kala ka hor dhisa oo uu sheegay inay bilicda magaalada ku hayaan foolxumo isagoona amar iyo digniin wada socda ku amray inay muddo 24 saac gudahood kaga qaadaan alaabta u dhaxta gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur oo ahaan jiray gudoomiye ku xigeenkii degmada Gacan Libaax haddana gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ayaa gudoomiye ku sifaysan hawlkar oo ay ka muuqato waqtiyada uu ku jiro hawlihiisa shaqo tani waxay ka mid tahay wadooyinka badan ee intii gudoomiyuhu xilkan qabtay uu ka hirgeliyay degmadaasi Ibrahim Koodbuur Axmed Khalid Farax Kalson TV Hargeysa.